Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhowaada kanaalka xogta geeska oo aad ka heli doontaan warar iyo warbixino update oo idin cajabin doona. Haddaba si aad kanaalkan ugu xidhnaato subscribe saar like-na saar si uu fiidiyowgu dad badan u gaadho soona daawo ku soo dhowaada warbixinta maanta. waa Mama Malyun oo nabiga cayday iyadoo ku jirta fiidiyow live ah oo ay ka tabinaysay barteeda YouTube. haddaba Mama Malyun ayaa hore looga xidhay baraha bulshada gaar ahaan barta YouTube. waxaa dacweeyay dad garanaya isla markaana ay xigaal dhow yihiin oo ka mamnuucay bartaasi, balse waxay dib u furatay kanaal kale oo YouTube ah maadaama ay iyadu awoodday inay kanaal kasta furato haddii mid laga xidho. haddaba kanaalkii dambe ayaa ka sii fogaaday intii uu kii subscribers uu haystay kii hore, waxayna iyadoo live ku jirta nabiga ku cayday ay aflagaadaa oo aad u xun. haddaba waxaa la filayaa inay dadkii markii hore dacweeyay ay dib u dacweeyaan si looga xidho kanaalkan YouTube-ka ee kale ay furatay. haddaba Mama Malyun ayaa si xun u cayday nabigeennii suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. haddaba Mama Malyun oo ku nool cariga dalka Mareykanka ayaa looga shakisan yahay inay maskaxda wax ka qabto maadaama ay soo bandhigtay fiidiyoyo aad u xunxun kuwaasoo uuna soo bandhigi karin qof iyada oo kale. marka loo eego da'da ay jirto ma soo bandhigi karto fiidiyoyada ay soo bandhigtay iyadu gabadh iyada oo kale. haddaba waa islaan ku nool cariga dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota, halkaasi oo ay Soomaalidu aad ugu badan tahay. Mama Malyun waa 52 jir ka soo jeeda dhulka Uduga ee Puntland. waxay tagtay dalka Mareykanka 1999 waana dadkii qaxootinimada ku tagay xilligii dagaalkii sokeeye.